ku-xigeenada golaha wakiilada iyo golaha guurtare gudoomiyaasha waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi intii badneed waa la yiri inagu maalin walba way kala kacayaan niman danteena wada maaha waxay doonayaan sidooda inaynu ku noolaano waxa madaxweyne soo jeedin lahaa ictiraaf raadinta in la kordhiyo oo la wado inaynu samaysano ciidan adag oo soo celina national service-kii oo ardada iskuullada ka soo baxaysa madaxweyne aynu tababar u samayno u diyaar garowno gacanna ugu diyaar garowno dagaal gacanna ugu diyaar garowno ictiraaf raadin waxa weeye waa bareer waa laynoo bareersan yahay dawladaha iigadna awille wax kama aynaan sugayn waxaanay ku kacayaana way og yihiin Soomaaliya inay nabad tahay way og yihiin inaynu intaasoo doorasho gallay way og yihiin inaynu xukuumad baarlamaan aynu leenahay calan leenahay lacag leenahay waxa la rabaa waxa weeye inteen tan la burburiyo siday u burburiyeen Soomaaliya marka waxaan soo jeedin lahaa waxa weeye inaynu samaysano cudud adag oo ciidana oo national service aynu gelino iskuullada secondary-ga ka soo baxaya oo aynu u diyaar garowno Soomaaliya cadaawadeena kaga soo socota maalin walba waa la caawinayaa ciidan baa loo dhisayaa waxaana loogu dhisayaa inay tan burburiyaan marka anigu walaalo oran maayo walaalo ma nihin haddaynu walaal nahay waxay noo samayn lahaayeen waxooday qabsan lahaayeen teenana wayna dhisi lahaayeen intaasoo wada hadal baynu la gallay wax alle waxaynu ka faa'iidnay ma jirto walaalo ma nihin inama aqoonsana jiritaankeenay ka xun yihiin marka waxaan soo jeedin lahaa inaynu ciidan adag dhisano oo u diyaar garowno cadaawadda ina kaga soo socoto Soomaaliya ilaahay baa marba sii kala daadinayo waa kuwa dee 8 u qaybsan waana sii qaybsamayaan aynu kalsooni muujino isku kalsoonaano dadkeena midayno aynu meel wada jeesano ictiraaf raadintana yaynaan ka daalin waxa la rabaa inaynu ka daalno oo layna ku khasbay inaynu Soomaaliya ku noqono sidii madaxweynuhu sheegayna 100 sano hadday qaadanayso waxa weeye inteena yar baynu isku filaysiinana haddaba international community waxayna siisaa ma jirto workshop bay inoo qabtaan marka waa inaynu isku kalsoonaanaa innagana waxayna ictiraafsan dadkeena iyagana waxay ictiraafsan international community-ga laakiin dadkii baa ictiraaf waayay marka waxaan soo jeedin lahaa madaxweyne inayna ka daalin ictiraaf raadinta quwad inaynu dhisano oo caruurteena national service-ka gelino u diyaar garowno waxa ay sameynayaan wax ka xun iigad iyo international community-guna waynoo bareersan yihiin ayna waqti badan iskaga lumin laakiin aynu inagu midnimadeena iyo walaalnimadeena aynu dhisno inagu is-ictiraafno meel ka soo wada jeesano wayda salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu